waxaan leeyahay madaxweynaha in badan baan halkan ka ooyay oon baaq u diray oon la hadlay oo iga hoos qaadi waayay marqaatiyay leedahay madaxweyne indhaha maa la'da dhagaha maa la'da afka maxaa u xiratay ma isoo fiiris ma ii la xabatid wuu ii la xaban waayay masajaan u diray lambarkiisaan helay masajaan u diray markuu iga qaban waayay igama soo jawaabin gabadh uu qabo baa sidoo kale aan u diray way iga qaban waysay masajaan u diray okay marka hadda waxa meeshaas iiga cad cadaaladii ikraanna uu hor taagan yahay shantii nin oo joogtay nabad sugidda oo gabadhaydii ku dhex dhibaataysay maanta hadduu xasaanad u raadinayo meeshaas waxa iiga cad inay tahay silsilad isku xiran oo rabta gabadhaydii inay xaqeeda duudsiyaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay ayagoo isku meel ka soo jeedo ay arrintaas ay wax ka qabtaan oo cadaaladii ikraan ay garab istaagaan ayagoo ay garab istaagan haddana ku mahadsan waxaa kaloon halkan aan uga mahad celinayaa Prime Ministerka Maxamed Xuseen Rooble aad iyo aad u mahadsan yahay jazaakumullahu khayran ummadda Soomaaliyeed oo dhan u garab istaag cadaaladda iyo xaqa waa kii lagu dhaariyay waana ku mahadsan tahay thank you very much jazaakumullahu khayran kuleeyahay marka intaasaan uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hadli lahay hadal waa iga buuxaa laakiin salaadii maqribka adigeed waa mahadsantihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo hoolka buux dhaafiyay oo cadaaladda ikraan u soo baxay gabdhihii lagu jujabiyay kulli international community inuu soo baxo oo kiiskan soo faragashado United Nation kulli inta xuquuq bil aadan u doodo ikraan arrinteeda way ka jiifaan hadday imaqlaayaan waxa ka qabtaan soo faragashadaan saasaan leeyahay waxa kaloon halkaan aan eed uga diraaya gabdha meeshaan ka soo muuqan jiray Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ikraan ayeeyadeeda Jawaahir Baarqab oo ikraan ayeeyadeeda wax ka afdheeray jirin oo maanta aan ka arkin wax cadaalad iyo wax urur haweena meeshaas ay ku fishilan yihiin wabillahi tawfiiq waxaan ka rabaa shacabka Soomaaliyeed banaanbixii aan sheegay oo maalinta arbacada banaanbax ummadda Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho inay cadaaladda ikraan u soo banbaxaan ayadoo qof walba ay gurigeeda ugu soo gali karta dhibaatada waa mahadsantihiin aad ayaa u mahadsantihiin